idaacadda beerlula kaalinta ay ugu jirto bulshada qeybaheeda kala duwan runtii waa garan karnaa ka dhalinyaro ahaan ururka dhalinyarada isxilqaan ama dhammaan ururada dhalinyarada gobolka Hiiraan ka jiro meesha ay u soo istaagtay idaacadda beerlula waa wada ognahay waxaa maragma doonta ah ururka dhalinyarada isxilqaan hadday ahaa lahayd bulshada qeybaheeda kala duwan waxyaabaha ay ku soo kordhiyeen idaacadda beerlula ayay ahayd dunida dacaladeeda gaarsiisay ama adduun weynaha tusisay waxqabadka ururka dhalinyarada isxilqaan ama ururada ka jira gobolka xaqiiqatan haddii aysan beerlula jiri lahayn wax jiri lahayn male maxaa yeelay waxaan noqon lahayn nin ashuun ku adimayna wax maqlaya male beerlulo wax shuruuda lagu maxiri jiray shaqooyinka aan qabanayna si u soo bandhigto waxa caqabada kale ma kulmi jirin saacad alla saacadaan u baahanana wariyaashooda waxay ahaayeen kuwa heegan noo ah oo na garab taagan biduuni shuruud hadday ahaa lahayd dad masaakiin ah oo waxyaabo badan aan u qabanayno wax gaarsiinayno hadday ahaa lahayd ilaa dhowr ceel oo magaaladan beledweyne dacaladeeda kaamamka ku yaala laga qoday ay gaarsiiyeen sida maama caasho foundation oo kaleeto iyo dad samafayalayaal oo muxsiniin ah ay gaarsiiyeen oo kaleeto xaqiiqatan beerlulo mar walba waa lafdhabar waxayna lafdhabar u tahay bahda isboortiska bulshada qeybaheeda kala duwan dhalinyarada hooyooyinka siyaasiyiinta wax walbaba beerlulo kaalinteeda wax hadda bil 15 sacab lagu madadi karay tiraada Soomaalida waa wada ognahay waxqabadkooda waana aragnay ka ururka dhalinyarada isxilqaanna mar walbaba waaba hooska kaliya ee aan hergalno idaacadda beerlulo waxaan leenahay wariyaasheeda bulshada kaalin xoog laad u haysaan kaalintiinana wax la qari kara ma aha taariikhda ay xusi doonto annagoo og xaaladda iyo marxaladda aad ku shaqaynaysaan iyo waxyaabaha aad bulshada qeybeeda kala duwan kala kulmaysaan waxaa idin leenahay hore u socda oo ha joogsanaha harkii aad harsanaynaa tihiina beerlulay guulaysta